باهذي هوين إلهي قبترا كمبني باهذي هوين إلهي قبترا بدما يا كمقنا أصلي بيوركين كمبني باهذي هوين إلهي قبترا كمبني باهذي هوين إلهي قبترا بدما يا كمقنا أصلي بيوركين بلعدا دمر كانوا تبين كاريني يا بارفون كبرح لوكي مكدا كاريني يا بارفون كبرح لوكي مكدا وحيلو بريغاغا إيو آدم كبقين وحكولا وكولا صوباري ديو وهورو غارس لبيور بلعدا دمر كانوا تبين كاريني يا بارفون كبرح لوكي مكدا كاريني يا بارفون كبرح لوكي مكدا وحيلو بريغاغا إيو آدم كبقين وحكولا وكولا صوباري ديو وهورو غارس لبيور كبقو isqurxinta haween wuxuu ballanqaadku yahay inanku hayaan buyor orjina badbaadi wajigaaga oo bilaney asiibuyo la xidho kabogo isqurxinta haween wuxuu ballanqaadku yahay inanku hayaan buyor badbaadi wajigaaga oo bilaney aslibuyo la xidho kambeni ambaxoo dunida ku yahay barada tagtaba ilahaas leskama hadle udaalu yahay buyor كمبني عم بحضني ذا ويا هالبردة تكتبا بلا هاشلس كما قبل ويا هاي بيور وبين حفيسكا وبدور يا هال دن بحدي ذا إيو اسمي برتن كذا إيو دي اسفردي تشجيجا مناطر مقدشة وعين هرقيسة بيدونا بروي حركي بطلان إلى وصا سوين أستاني بدان حفظ أيها بحسنو وكهلي أسمي بيو بين حفيسكا بحديدة إيو اسمي برتن كده إيو دي اسبردي تشجيجا مناطر مقدشة وعين هرقيسة بيدونا دروي حركي بطلان إلى بوسا سوين أستاني بدان حفظ أيها بحسنو وكهلي أسلي بيور وحبها قيب يحي كل شوي كمبني قائف بحي وقرتها صار هواي السيور ولي بطرقنا إيسا تلقني علي بلا تشرف مدني باقي وياي كل شوي كمبني قائف بحي وقرتها صار هواي السيور
ولي بقرنا يستلو ميالي بلاد شرف مدنين الليلة ديق اللول إنك شي بالكتا بلينا ودول ساريا وحبها قيقويا حي كل شوي كبني قائف بحي وقردا صوت حبايب سيو ولي بقرنا يستلو ميالي بلاد شرف مدنين الليلة ديق اللول إنك شي بالكتا بلينا ودول ساريا حي الليلة ديق اللول الليلة ديق اللول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاله قالقة waxaan idinka raali gelinayaa dhammaantiin waa idin salaamay maasha allah ayaan qurux Aisha maasha allah kulli aad iyo aad idin salaamaya alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay dib noogu soo kulmiyay maasha allah heesta waxay ahayd heeska muxuu loo sameeyay company-ga Asli Pure Skin Care ay ahayd maasha allah aan ku bilaabanayay barnaamijka aan qayb idinkaga dhigayay waxaan caawa mar kale aan hawada dib ugu soo laabanay Allah subhanahu wa ta'ala noo idmay inaan caawa hawada dib ugu soo laabano barnaamijkeeni deeqalul show ee aan bilownay wiigii hore alxamdulillah dhammaantiin waa idin wada salaamaya feedback-yadiina aadan uga helay runtii Facebook meel aad loogu enjoy gareeyo waaye waxaan rabaa inaan maanta aan caawa barnaamij yar oo muhiim ah oo qiimo badan inaan isla wadaagno bulshada cidda uu seegana dib ay kasoo daalacan doontaa insha allah aada idin salaamaya xamdi loofka kulli waa idinka guddoomay waa idin wada jeclahay maasha allah dad qiimo badanaad tihiin ummadda soomaaliyeed dhammaanteed runtii waxaa fahmayaa inay tahay barnaamij qiimo badan inuu yahay sida aad iigu sheergarayseen sida aad like u saaraysaan sida iila shaqaynaysaan sida aan isu jecelnahay soomaalinimada walaalnimada khaasatan dumarka waxyaalaha entertainmentiga waxyaalaha oo ay ku raaxaystaan intaba aad iyo aadan ugu riyaaqaa maasha allah aniga laftigeyga waxaan u hadlaa afhayeenka dumarka marka alxamdulillahi rabbil caalamiin walaalahay dhammaantiin waa idin wada salaamaya feedback-yadiina sheerkiina intaasba aad iyo aadan ugu enjoy gareeyaa waxaan ka sheekeynaynaa kaliya waxaa waaye waxyaalaha anagana anfici karo ee qiimaha leh ee company-gan Asli Pure Skin Care uu soo sameeyo runtii gabdho badan oo ila soo xiriiray Facebook-gayga live habeenkaas daawanayay gabdho kale oo gadaal ka daawaday maasha allah waxyaalihii feedback ahaa aad iyo aadan u qaatay waxaan rabaa inaan maxaa la dhahaa aan si fiican inaan ugu enjoy gareyno si aadaab leh qurux badan raaxaysan qofkii shaqo ku jira xitaa uu dib ka daawan karo isagoo gabdho habeen muxuu ahaa habeen hore soo wacay waxay dhaheen anagoo shaqada ka soo baxnay waa sugi weynay maasha allah sidii marka shaqada ku jirna waa arkaya barnaamijka live soo galay haddaa wada sheergaraysaan dad badan oo muhiim ah oo soomaaliyeed uu wada gaaraya runtii barnaamij qiimo badanna waaye ma aha wax dadka lagu dhibaateynayo ama waxyaalaha xunxun ayaa xun in la faafiyo xaqiiqda waxay tahay annagana runtii soomaali haddaan nahay bini aadan ahaan dadka ugu fiican aaba ku jirnaaba runtii aniga positive-kan jeclahay because negative-ka wax u faa'iideynayo ma laha wax uu saxayana ma jirto marka kaliya waxaan ka hadlaynaa waxay tahay dumarka isqurxintooda waxyaalaha u fiican waxyaalaha u xun kiimikada dhibaatada ay keento sida looga hortagi karo dadkii already damage-ka ku dhacay sida isu daaweyn karaan si maxaa la dhahaa sidee iyadoo qurux badan oo damage-na gaarin ama aan dhibaatoonin ay gabadha isu qurxin kartaa waa fakarkeena aqoonteena ra'yigeena waa kala faa'iideysanaynaa insha allahu tacaala
waxa intaas dheer maasha allah aada idin jeclaha ilaaha idin jeclaado barakallahu fiika aad iyo aada idinkaga guddoomay walaalahay qiimo badan aad tihiin maasha allah mid iyo laba iyo saddex xataa dadkii aan usoo jawaabi waayey ma aha inaa idin muxuu ahaa waxaynahay la-aantiin waxba ma suurtagal lahayn far keligeed fool ma dhaqdo xaqiiqda waxay tahay waxaan muxuu ahaa barnaamijka kusoo qaadanay waxay ahayd inaan ka hadlaynay kambanigu wuxuu leeyahay baraanjiyo badan oo kala duwan waxaa ku xiran gabdho soomaaliyeed oo kala duwan oo meelo kala duwan ku yaalo waxay ka adeegtaan kambanigay ku xiran yihiin intaasoo sanay ka adeeganayeen ma aha wax sanadkii hore bilowday waxa bishii hore bilowday wax hadda muxuu la xayeysiinayo ma aha just waxaan rabnaa wixii kusoo kordho sida loo kala adeegto walow aan aad iyo aad u samayn doono dadka kambaniga ku xirnaa muddo sida ay u kala yihiin sida ay muddo ugu kala xirnaayeen ayaa insha allahu tacaala waxaan samayn doonaa aan qadadka muxuu ahaa aan soo gelin doonaa waxyaalahay ka faa'iideen waxyaalahay muxuu ah ku dhaliileen sida ay u arkaan intaba insha allahu tacaala waa ka qayb gelin doonaa ayaga laftigooda janisan siin doonaa ay muxuu ah uga qayb qaataan ayagoo meelo kala duwan weliba joogo aniga iskuma taxloojiyo inaan maxaa la dhahaa aan dadka aruuriyo macnaha customerkayga intaan aruuriyo inaan because way iga bateen walaalahay waa iga badateen maasha allah inaan intaa idin aruuriyo oo hal meel aan ku kaydiyo ama ku waxeeyo ama feedbackyadiina waad ka weyn tihiin waa ka badan tihiin waadna ka qiimo badan tihiin intaas marka mid iyo laba iyo saddex ma dhaho xaqiiqdii barnaamijkii wiiga hore aan sameynay oo bilowga ahaayo tijaabada ahaa gabdho badan oo aad u qiimo badan oo aanan filayna xaqiiqdii inayba facebook ku xiran yihiin aa ila soo xiriiray aad iyo aadaan ugu farxaa marka idin muxuu ahaa aan arko dad ii mahad celinayo dad maxaa la dhahaa igu tala darsanayo muxuu ahaa dumar soomaaliyeed oo rabo inay macnaha kambanigeena iyo waxtarkiisa iyo horumarka iyo kambani soomaaliyadoo ay ku faanayaan aad iyo aaday ani xitaa ii dhiirigelinaysaa ma aha wax qarsoomayo kambaniga soomaaliyeed ee weyn anigaba waxbaan ku leeyahay kambaniyada waaweyn waa ku faanaa waa ku xisaabtamaa muxuu ahaa waa la shirtagaa sometimes meelaha waaweyn oo ajanabiga markaan tagno waxaan kambaniyada aan soo tirsado oon ku xisaabtamaayo soomaali ahaan marka insha allahu tacaala adinka laftigiina sidaas iyo si ka muhiimsan ayaan muxuu ahaa aan filayaa inaad kambaniyada ugu xiran tihiin soomaalinimada alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan hadda maraynaa heer kambaniga uu sameeyo maasha allah dad aad u tiro badan oo ku xiran oo life ah oo barnaamijyadiisa iyo meelaha baraanjiyada uu ku leeyahay sida hadda wadanka kenya oo kale waxaa jooga soomaali aad u badan waana meeshii ugu horeysay ee africa aan ka furno aan africa aan ka furo ay ahayd waxaa aad iyo aad aan u leenahay customer wallahi alcadiim maalintii la furay ilaa hadda I feel markaan dareemo gabdho dhahayo 2013kii 2014kii aan dukaanka asli pure aan ka adeegan jiray deeqaluul ilaa intaasaan ku xiranahay abrodhigtiga waxaan la bilowday ayadoo cusub waxaan ilaa hadda isbedelkeedii tii hore oo la bedelay kalarkeedii guduudka maasha allah I feel great so waxaa ogaanaysaa businesska ma aha wax easy ah ma aha wax bulshada aad si khasab ah ku kasban karto ma aha wax aad si aad sasabasho ku keensan karto ma aha ilaahay subxaanahu watacaala qalbigaagu daalacanaya samee wax wanaagsan ilaahay ummadiisuu kuusoo cabiidinaya ummadda adiga iskama lihid ilaaha iska leh marka been ha ka sheegin maalintii aan sameynay ilaa hadda annaga gradekeena maasha allah ummadeeni aaday kor ugu kaceen aaday wax ugu fahmeen hadalladeena meeshaan tago maanta waa la ii rayaaqayaa ummadii waa nasoo dhaweynaysaa kambanigii maasha allah maalinba meel hor leh annagana sidii dee fudaydkii taq ma niraanee tartiib maalinba tartiibaa loo guurguurtaa alxamdulilah rabbilcaalamiin just waxaan rabaa keliya quick waxay aad dumarka aad u jecel yihiin dumarka waxay aad u jecel yihiin waxyaalaha aad maxaa la dhahaa ay
isqurxinta calaa kulli xaal dumarka waxay aada u jecel yihiin inay caddaato qurux badan tahay haar lahayn fin lahayn intaas waxaan wax dhaafsiisan maan rabnaa ma rabno xaqiiqda idiin sheegaya haddaa iisoo qortaan waxaa ogaanayaa inaa dumar badan ay ku jirtiin gabdhaha soomaaliyeed hooyada gabadha kulli intaba isku dar waxay jeceshahay inay qurux badan tahay inay madow lahayn inaysan fin lahayn inay haar lahayn inaysan jectad lahayn ay caddahay ay qurux badan tahay annaga dhan intaasaan wada jecelnahay wax dhaafsiisan ma rabno wax zaa'id ah kale ma rabno marka sidii aan intaas aan u heli lahayn unbaan istusaynaa isfahamsiinaynaa aan isku wacyigelinaynaa waxaan anagoo ka faa'iidaysanayno barahan bulshada ay ku kulmaan anagoo ka faa'iidaysanayno because maanta caawa waxaan ilaahay subxaana watacaala noo suurtageliyey awoodiisa weyn iyo technolojiyadan iyo cilmigan la gaaray in soomaaliyana laga daawanayo africa oo dhan america australia meel kastana laga daawanayo alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa ila mahadaas dhan iskale ilaahayii technolojiyadan ummadda noo fududeeyey mahadaas iskale finally waxaan rabaa anoo khaasatan wiilasha gabdhaha qof kasta oo soomaaliyeed oo meeshaan ku jiro caawa barnaamijkan ka qayb qaadanayo waa idin wada salaamay dadka gadaal ka soo galay waa idin wada salaamaya dad qiimo badana tihiin maasha allah allah idin barakeeyo dhammaantiin waxaan rabaa inaan barnaamijka caawa aan kasoo qaadano adoo isqurxinayo adoo oo xoogaa dhalaalaysid oo iscadeynaysid sida naturaalka aheedoo ilaahay kuu abuuray annaga ma bedelayno alaabtii wax bedeli lahaydna annaga ma samaynin awoodeeda iyo maxaa la dhahaa iyo cilmigeeda intaba ilaahayna ma haleeshiinin ilaahi subxaana watacaala aqoonteedii intaas waa leeyahay waxyaalaha la isku caddeeyo ama waxyaalaha ay ku jiraan waxyaalaha la isku ku caddayn karo ama addicted a ku noqon kartid addicted waxaa la dhahaa waxa haddaa marsatana wow aa noqonaysaa sorry haddaa marsato wow aa noqonaysaa haddaa iska daysidna laguma fiirin karo waxyaalahaas waxay soo hoosgalayaan raalli ahaada barnaamij live ahaan ku jiraa maasha allah haddaa qadka soo gelgelaysaan waa dhibaato taleefonkan amaba ula sii jiraba habeen iyo maalin ma aamuso saasuu u qaylinayaa calaa kulli xaal barnaamij waxaan ka wacyigelinaynaa in waxyaalaha la isku caddeeyo kareemooyin lagu daro aaday u xun tahay waxay soo hoosgelaysaa khiyaanada waxay soo hoosgelaysaa in gabadhii xag rabbi horta kuumaba fiicno oo business ma noqonayo wax success noqonayo ma aha secondly wuxuu noqonayaa maanta marka aniga marsado kareemkan face waxaa la dhahaa serum vitamin la dhahaa dukaamada cadaanka ah iyo kambaniyada cadaanka ah way leeyihiin serum vitamin serum waxaa loogu talagalay skinka deadka ah dhintay inuu kaa qaado skinkaaga muxuu ahaa oo hawada ku dhacday oo adiga aadan lahayn ama pollution ama ma aragtay waa qayirmay marmar inay dhahaan dumarka maanta waa qayiranahay oo kale khayraadaasuu kaa qaadaya serum vitaminka wuxuu kaa qaadayaa keliya skinka deadka ah oo dhintay waxaa noqonaysaa bright waxaa noqonaysaa bright waxaa noqonaysaa xoogaa gold ma aha cadaan gold adiga dhan shiny oo gold aha noqonaysaa ma aha inaad ku cadaanaysid marka waxaan rabnaa maasha allah waa idin wada salaamaya dhammaantiin dadka gadaal ka soo galay aad iyo aada idin wada salaamaya saa barnaamijka ugu xiran tihiin I hope inaa waa hore share dhahdeen oo hadda muxuu ahaa idiin soo wada galay barnaamij kasta oo aan sameynaynana oo saasoo kale idinkugu soo geli doono aad iyo aada idinkugu mahad celinayaa waqtiga aadna siinaysaan iyada laftigeeda waa muhiim dadka walaalaha ah waa inaa u mahad celisaa sababtoo ah asagoo shaqo ku jiro ama waqtigiisii relaxka ku jiro ama howl kala haysta waxaa dhici karto inuu intuu barnaamijkaada furo uu daawado ayada laftigeeda waa very muhiim inaad tiraahdo jazakumullahu khayran walaal waa mahadsan tahay ayada laftigeeda sababtoo ah waxay dhiirigelinaysaa in hadhow dad kaloo badan ay wada gaaraan maasha allah dad badan oo kale inuu saas u wada gaaro waxaan leeyahay haweenka
waxaa idinkula talinayaa gabar yar iyo qof weyn haddaad tahay serumka qof kasta ayaa loogu talagalay serumka inta badan soomaalida kambaniga asri pure serumka uu sameeyey aaday u wada garanayaan wuxuu ku yaalaa meelo kala duwan aaday u jecel yihiin qaarkood laba xabay qaataan walaali ama liga dhamaystaa meel fogaan jira ay leeyihiin 4 xabay qaataan aaday u isticmaalaan natiijadiisana way arkaan sababtoo ah ma aha wax hadda sanadkan iyo sanadkii hore iyo kii ka horreeyay soo baxay ma aha serumka wuxuu nadiifiyaa all skinka dhintay oo wajigaaga saaran maxaa soo geli karo haarta maxaa soo geli karo finka fin ka soo baxay oo maxaa la dhahaa ama si oo markii caadada ku soo socoto ama markii stress qaado ama markaad wajigaaga aad si fiican aadan u nadiifinin oo pollution badan ee kugu dhacdo jikada galaysaa cunta karinaysaa qiiqi saliida kugu baxayso banaanka aadaysaa hawada pollutionkii kugu dhacayo waxaas oo dhan wajigan uma adkaysan karo uu kaydsanaya hadhow waxa dhici karto caawa markaa seexato inuu reaction keeno reactionka maxaa kamid ah inuu furuura kaasoo baxo waxaa dhici karta inuu shuruura marka mostly aad waxaa loogu dadaalaa oo serumka xitaa ka muhiimsan serumka waxaa ka muhiimsan face washka marka hore mara aadan dhaqin horta ma feereyn kartaa ma laalaabi kartaa ma xareysan kartaa waa may aqli ahaan waxa aa wajigaaga ku dhaqaysid oomada dharka lagu dhaqdo iyo saabuunta mariska ah iyo meel kasta aniga dadka joogaan la hadlayaa waxaa isleeyahay qof walba wuxuu raadiyaa oomaday ka quality badan tahay ka fiican tahay ay ka dharka dhalaaliso ay ka carfiso wasaqda si fiican uga goyso al raadiyaa bini aadamka maxaa intaas u raadisaa waxaa rabtaa dharkaaga wax wasaqda si fiican uga gooyo marka saas si lamid ah ayaa face washyada ay ku kala duwan yihiin face washkan sawir kuma yaalo wixii laga sameeyay babaay iyo qare iyo cambe iyo moos iyo khajaar iyo midna kuma yaalo sawir kuma yaalo ma arkaysaa face washka sawir dhan kuma yaalo macno ma sameynaysa inaan maxaa la dhahaa babaay iyo qare iyo lagu soo sawiro macno ma sameynayso laakiin waxaa muhiim ah oo macno weyn sameynayo in dadka inspectionka ama dawladana ay ka rabtaa dadka iibsanayana rabaan wixii laga sameeyayna in inta lagu qoro ingredientigiisa waxa uu qabanayana halkaas lagu qoro that's it intaas kaliya ayaa muhiim ah then qofka inuu try gareeyo waxa meesha lagu qoro sometimes iyo waxa uu qabanayo waxyaalaha qaarkood way kala duwan yihiin laakiin waxa fiican in qofka marka hore uu tijaabiyo aniga laftigayga waa tijaabo badanahay markaa arko wax excited ah oo qurux badan oo si fiican wax loogu qoray ama si fiican loo habeeyay aan arko kadib waxaan sameeyaa waa tijaabiyaa haddaan ka helo oo wixii laga sheegayay uu run noqdana maasha allah saasaa markasta aan ugu xirnaadaa aan wixii u gataa haddii uu wixii la sheegay ahayna haddee no one ku noqonayo ma jirto marka waxaan idin dhihi lahaa face washka saasoo nadiifiyaa marka waa khasab productiga dhan waxay ka samaysan tahay halkaasay ku kooban tahay 3 in 1 ma arkaysaa 3 shay oo la isku daray 3 in 1 waa 3 shay oo la isku daray wuxuu noqonayaa face wash wajiga ku nadiifinaysaa after markaa dhaqdeed wuxuu ku noqonayaa tonerka waa wada taqaaniin kambaniga markuu bilaabanayay ayaa muxuu ahaa la sameeyayba tonerka laakiin dadka wuu ku batay face washkii tonerkii moisturizer saasoo ahaan jiray waagii hore kambaniga marka aan kow sameynay laakiin hadda waxaan sameynay face washkii iyo tonerkii iyo maskihii intaa lagu soo wada daray 3 in 1 saasaa looga dhigay saddexdii shay oo la isku daray ayaa 3 in 1 ah saddexdoodii marka waxaa loogu talagalay inuu wajigana dhaqid kuu noqdo muxuu ah tonerna kuu noqdo mask ahaan haddaa rabtana in yar ku haysato kadibna ay iska dhaqdo marka waa la ilbaxay hadda waa la hormaray dadka ma waqti uma hayaan kan ku dhaq tirtir dhig haddana kii kala soo qaad haddana kan mari inta is too much shaqo waxay noqonaysaa aniga laftigeyga kula hadlaayo waa ka caajisaa sometimes marka
walaalahey dadka gadaal kasoo galay waa idin wada salaamaya barnaamijka waxaa dhici karta inaad dhexda kala kulanteen waa idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ah aad barnaamijka uga qayb qaadanaysaan haddaa sheer garaysaan jazaakumullahu khayran haddaa like garaysaan oo dad kaleeta ay wada gaaraan baarakallahu fiik haddaadan waxba u qabano iska daawato khayr badan allah ku siiyo waa mahadsantihiin dhammaantiin waxaan leeyahay barnaamijka waxaan rabaa inaan marka uga qayb qaato face washka markaa ku dhaqdid oo nadiifisid face washka xitaa nimanka waa isticmaalaan aniga muxuu ahaa dadkayga muxuu ahaa waxaan dhigaa musqusha walaa wiil walaa gabar kulli waa la isticmaalaa sababtoo ah ma aha wax dad gaara loogu talagalay ma aha wuxuu nadiifinayaa skinkaagu nadiifinayaa weliba dead skinku kaa qaadaya dry makaa dhigaayo maasha allah waxaa u gudbaaya markaa wejiga dhaqato nadiifiso maxaa u baahan tahay waxaa u baahan tahay wax yar oo shayni kaa dhigo maasha allah gabar america joogta haddaa i daawanaysid daraad maalin dhaweyta keliya u dhiibay week 2 week ma haysataa u malaynaya mise 2 week haddaanan astaghfirullah haddaanan dambaabin waxay tiri durbo waa iga dhamaaday haddaan ogahay mooraan dalban lahaa sababtoo ah habeenkii intaan isku dhabooqo aan seexdaa sababtoo ah wejigiia mar hore iga dhintay very wuxuu ii noqday tiri aan aada oga helay maasha allah marka waa idinku wada faraxsanahay serumka ha moogaanina sababtoo ah wuxuu sameeyaa skinka dhintuu kaa qaadaya caawa haddaa ilowdid no problem haddaa berri marsatid wuxuu nadiifinayaa wixii skinkaaga ahayn oo raf ahayuu kaa qaadaya ulajeedadeena dhanna anaga waa inaan shine helno waa inaan dhalaal helno waa inaan muxuu ahaa gold face inaan helno waa inaan baby face inaan helno runtii baby face uu kaa dhigayaa serumka wallahi alcadiim qofka dadka aad maasha allah u isticmaalo gabdho badan waxay dhaheen wejigeeni duqduqda ahaa siiba dumarka kiimikada isticmaalno dadka gabdhaha kiimikada isticmaalo gabdho younger than me aad iiga yaryar xaqiiqdii waxaa arkaysaa wejigooda dhan oo duqduq ah gooman 2 goon ah kasoo haraayo wejiga dhan waxaa moodaa in la calaanjiyey marasas loo calaanjiyey camal inta kaduuda ku jira inta kaduuda ku jira inta kaduudka iyo duuduubka iyo jactadka make up ma qarinayo xaqiiqda idiin sheegaya make up ma qarinayo you become dismoral markii lagu dhaho maxaa la dhahaa da'da aa sheeganaysa da'daas ma jirtid markii lagu dhaho qofkii morally happy ma noqonayo morally qofka asaa isdareemayo inta dhan laab inta kasoo bilaab ilaa inta gabar yar oo dhabankeeda saas isugu soo jabay inta haddana dhinaca kaleeta soo laab saas u jabay ma make up aa qarinayo make up ma qarinayo make upka shamiito ma aha darbi lagu shamiitayna ma ah wax yaroo dhalaal yar iyo wuxuu ku siinaa hadday ugu badato finkoo yaroo kugu madoobaaday waa dhici kartaa inuu kaa qariyo way dhici kartaa laakiin maxaa la dhahaa make upka jactadna ma qarinaayo duuduub ma qarinaayo maxaa la dhahaa haar badan ma qarinaayo waxyaalaha oo xoogaa oo wejiga oo oldiga noqday waxba kama qaban karo marka waxaan kuu sheegayaa is too late wejigaaga face washka dad badan u baahanaa jiro waa la helayaa facebook meesha joogtid ay ku xiran tahay haddaa Soomaaliya joogtid muqdisho waa ka helaysaa haddaa hargeysa haddaa Somaliland joogtid hargeysa ka helaysaa xarunteena weyn suuqa waaheyn ku taalo haddaa joogtid jigjiga waa ka helaysaa dowlad deegaanka Kenya haddaa joogtid Nairobi aa ka helaysaa Islii 12ka dukaankaas waxaa la furay 2013kii haddana waxaan joognaa 2018 maasha allah haddaydan idinka ahayn dumarka Soomaaliyeed aysan toos uga adeeganaynin toos ugu xirnayn productiga aysan happy ku ahayn happinesska hadal ma noqdo wiilkii heesayo heesta sameeyay wuxuu dhahay weliba maxaa la dhahaa burqanaysa talo ama hadal kaliya macnaa iska hadal ma aha waxyaalaha laga hadlaa waxaa waaye qofkan uu qaadanaya uu soo tijaabinaya uu is arkaya hadhow caqliyan alaab lagu noqon karo mar kale la soo iibsan karo inay tahay iyo in kale markaas asaa go'aanka gaaraa weliba waxaan aad iyo aad waa idin salaamaya dhammaantiin maasha allah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo weliba mararka qaarkood aad uga xumaadaa gabdho badan
oo yiri gabdha Kenya iga soo wacay waxay dhaheen productyaal kale oo cusub oo xiiseynaya aaday aan soo marsaday waa shalay dib aan u shalay sababtoo ah wajigayga wuxuu la haystay productiga asli pure ku xirnaa on toos ugu xirnaa wuxuu ahaa isli ku yaalo to alafka Madiina Mall dukaankaas marka waxay dhaheen waxay tiri waxaan ku xirnaa dukaanka maxaa ii geeyay tiri alaab la tijaabinayo oo hadda iyo koow cusub tan ay igu dhigtay haddana repair u baahanahay repair macnaheedu waxa waaye in haddana dib dhibaatada igu dhacday haddana inaan hadda dib ka soo kabsado oo aan maxaa la dhahaa aan haddana dib aan repair isugu sameeyo marka repairka naftirkiisa qarash badan ka galayo maanta dhan waa markaad waaw iska dhigtid oo xoogaa isku duba dhacdid oo adiga dhan maasha Allah noqotid haddana aad ka bilowdo haddana meeshii iyo ka badan iyo haddana soo bilow waxay noqonayaan tacab qasaare noqonayaan dadka Yurub joogo dhan waxaa looga diraa Ingiriiska anaga basekeena hadda Ingiriiska waaye waliba Sweden waxaan ku leenahay iyadana xarun weyn maasha Allah xarunta Scandinavianka Denmark hadaa joogto walaashay waxaan filayaa sorry okay aliyan ka soo tagay wada maxaa la dhahaa waxa is leeyahay Sweden ayaa kuugu dhow ama Ingiriiska lagaaga soo dirga dadka inta badan Yurubta iyo America ee jooga Ingiriiska looga diraa li'annahu boostadoodana waa fast waa ka fastisan tahay way ka insurancesan tahay insurance ku jirtaa number haysataa oo product alaabtaadii staffkaadii kala soconayso halka ay marayso maasha Allah dadkaas oo dhan halkaas looga diraa gabdho jumlo u qaatay way jireen laakiin ma garanayo hadda taleefanadoodii xaqiiqdii ma aqaana America iyo Yurubta kale laftigeeda way jireen waxaan rabaa soo duudub inaan wax yar aan idin la wadaago hadaa leedahay jectad fara badan jectadkaas iyo muxuu wajiga uu raf yahay hal week hadaa labadan isku isticmaasho face washka ku dhaqdo kareemkan yar marsato wax shaqo badan kaaga baahan ma aha wax ee ka badanay ka dhigayo ma aha maalinta ka dambayso waxa arkaysaa wajigaadiyo dib u soo noqonayo dib u soo noolaanayo soo dhalaalayo soo nadiif noqonayo maasha Allah gabdho badan oo qiimo badan ku jiro oo dhahay habeenkii hadda ogaan lahayn anaga evidence ah anaga cadeyn ah productiga xaqiiqda anaga ka sheegi karno dad badan oo waxa jira aan celcelinayo aan leeyahay maxaa la dhahaa anaga sheegi lahayn waxa uu taro inta sano aan ku xiranahay qaarkood wax kale aan isticmaalin intaasoo sano maasha Allah aad iyo aad idin wada salaamaya dadka gadaal ka soo galay kulligiin maasha Allah waxaan dadkan Yurub joogo kale way dhici kartaa in looga diro halkaas message-yadiina xaqiiqda way wada dhaafayaan maasha Allah raali ahaada hadaanan message-yadiina ta akhrinay aan idin jawaabin oo kale waa maadsantihiin Marian salaan sare waa ku salaamo Marian umo anas xabiibti Sweden waa laga helaa Stockholm uu ku yaala xabiibati wuxuu ku yaala xaafada Rinkeby uu ku yaala dukaanka 2015kii aan filaya aan imaaday oo halkaas laga furay branch weyn maasha Allah halkaas ay reer Sweden aad ugu xiran yihiin Sweden customer aan caadi ahayn dad aan caadi ahayn aan ugu xiran maasha Allah Sweden aad ay u badan yihiin Soomaalida joogto teeda kale waxa Soomaalida ay aad u fahmin inta badan oo in badanna aan ka shanqariyay waxa jiro productyaasha adduunka jiro dhan waxa idin sheegaya marka hore productiga ama kareemooyinka wajiga la marsado jirka ma sheegayo because jirka wuu daboolan yahay halkan waxaan rabaa caaw marsan karaa haddaan aan marsado Vaseline haddaan marsado coco butterka haddaan kareemo kala marsado nothing different sababta mataqaanaa wuu daboolan yahay saani u daboolan tahay banaanka u baxaya wuu daboolan yahay guriga joogta waxa dhici karta dharaa qabtaa marka wax badan oo dhibaato ah kuma dhacayaan jirkan iyo wajiga uu ka adkaysi yar yahay
wejiga wuu jilicsan yahay maxaa la dhahaa jirkan wuu ka adag yahay maqaarkan jirka ku yaalo iyo maqaarkan faceka ah way kala adag yihiin so wejiga waxba ma xamili karo wuxuu u baahan yahay in aad looga taxadaro wuxuu aad ugu baahan yahay in muxuu ah sensitive-ka laga ilaaliyo sensitive wejigan haddaa kan mariso kan ka daba mariso caawa oo seexato biri cuncun wejiga dhasasuu ku cuncunaya walow ayada laftigeeda maxaa la dhahaa dadka lagula taliyo waxyaalaha jikada kuu yaalo oo cuntada ah ayaad wejiga marsan kartaa barnaamijyadii horaan ka sameynay dibna insha allahu tacaala ayada laftigeeda waa ka hadli doonaa waxyaalaha la marin karo waxyaalaha aan la marin karin waxyaalaha jikada kuu yaalo cuntada ah waxaa loogu talagalay inaa cunto inaa wejiga marsato wejigan khafiif waaye sida burka bariiska maxaa la dhahaa ukunta oo koolo ah waa koolo Soomaaliya anaga koolo bugaagta markii iskoolka dadka ka go'aan bur inta la qasaa la marin jiray mabeena sheegaa bal asxaabe haddaa imaqleysaan aniga primary markaan ahaa I remember bugaagta markay go'aan buugga uu sas u kala go'o waxaa la samayn jiray bur yar inta la qasto meesha galka iyo buugga meesha u dhexeysa saas inta loo mariyo wax yar markay hawada ku dhacdo asaas la isugu dhajin jiray marka sababta la isugu dhajinayo maxay tahay oo loo marinayo waa koolo waxaa la rabaa inuu isku dhajiyo koolo see wejigayga u marina aniga dumarkeena anaga waxyaalaha aan rabno inaan ka faa'iidaysano waxay tahay aniga waxyaalo badan oo entertainment ah waa samayn karaa laakiin waxyaalo badan oonan aqoon u lahayn advice-keeda iyo taladeeda ma bixi karo wixii aanan garanaynin inaan ma garanayo tiraahda ceeb ma aha calaa kulli xaal barnaamijkii inaan ka boodin aanan wixii dhan naga noqonin barnaamij ma aragtay isku qasan waxaan rabaa productiyada dadka kambaniyada kale ay sameeyaan sida hadda wadamadan oo reer galbeedka oo anaga aan joogno oo xadaariga ah oo horumaray kambaniyada waaweyn waxay sameeyaan intaasoo product oo kala duwan oo wejiga ah intaasoo make up oo kala duwan waxyaalo badan ay sameeyaan marka sababta waxay tahay waxaa loogu talagalay productigaas ani waa soo gadan karaa waa marsan karaa adiga waa soo gadan kartaa waa marsan kartaa laakiin maxaa la dhahaa marnaba ma dhici karto in sida qofka cadaanka ahaa uu ugu shaqeeyay inuu ani iigu shaqeeyo ma dhici karto sababta waxay tahay productiga markii la samaynayo waxaa loogu talagalaa ama laga muxuu ahaa loogu talagalaa dad khaas ah skin khaas ah anima skin cadaan aan leeyahay malihi aniga cadaan miihi afrikaana ahay skinkaygana waa chocolate marka saas darteed even soomaalida dadka ugu cadcad skinkooda waxaan nahay maxaa la dhahaa skin adag oo afrikaan ahaan nahay marka waxaan u baahan nahay inaan maxaa la dhahaa skinkeena wuxuu u baahan yahay protection iyo wuxuu u baahan yahay waxyaalo khaas ah marka productigaas kambaniyada waaweyn ee cadaanka ah yaalo marka la samaynayo waxaa loogu talagalaa dad khaas ah which nation dadkee loogu talagalaa inay benefit ka helaan sida dadka cadaanka oo kale maxaa loogu daraa maxaa loogu badiyaa sidoo ayaga faa'iido ugu yeeshaa ayaga wuxuu faa'iido ugu yeelanayaa ayaga skinkooda iyo aniga skinkayga isku mid maaha ayaga markay 30 sano jiraan dadka cadaanka ah wejigooda waxaa soo galo duuduub jactad soo galo 25 sano gabadha ama wiilka markuu jiro cadaanka ah wejigiisa 40 jir 50 jir oo afrikaan ama Soomaali ah ayaa ku qiyaasaysa saas darteed markaasa waxaa loogu soo daraa more wax anti aging ah oo jactadkaas ka hortagayo kareemka waxaa lagu soo daraa face washka waxaa lagu soo daraa serumka isticmaalayaan serum vitaminka ay isticmaalaan waxaa loogu soo daraa waxyaalo anti age kooda skinkoodaas aa lagu base gareeyay marka annaga alaabteena kambaniga Asli Pure Skincare wuxuu ku base gareeyay skinkeena annaga skinkeena oo chocolate-ka ah oo afrikaanka ah oo saan ah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sida uu noo sameeyay ah oo jildigiisa ayaa wixii annaga benefit aan ka helayna ama faa'iido aan ka heli lahayn ayaa lagu daray saas darteedu kuugu shaqeynayaa adiga gabdhaha
يوروب جوجا حتى ما شاء الله آدي أفهمين كمبانية قالي سو قدن جيرين برودكتية قالي سو قدن جيرين وانت أساساً استعمالي جيرين حتى مركي برودكتيغان last 5 years حتى برودكتيغان وصوبحي اي تجابيين way ogaadeen difference-ga marka hadalka aad ku hadlayso iyo tijaabada qofka markuu isku daro waxa ku soo baxaya maxsuulkii ahaa inay alaabtan iyo waxa laga sheegay sax tahay sababtoo ah alaabta waxa loogu talagalay aniga gabar cadaan ah ama dadkan European-ka ah kama gadaayo uguma talagelin haddii hal iyo laba iyo saddex iga gataan ma sheegin aniga iyaga dukaamadooda intaan tago wuxuu ka soo gataa laakiin ujeedadayda yaa waay aniga ujeedadayda waa maxaa la dhahaa skinka afrikaanka ah oo adag oo maxaa la dhahaa wixii u shaqeyn lahaa maxaa anaga maxaa rabnaayo kale tusaale ahaan anaga ma nihin dad early degdego wajigooda ama age-ka ku degdega ama jactad yeesha ma nihin soo ma aha marka tusaale ahaan waxaan u baahannahay waxyaalaha madowga markaan uur yeelano haarana korayso marka qoraxda aan hooyooy waxaa jiro boqolkiiba intaas anaga garab rarataan nahay dadka soo Afrika joogo kale wadankii hooyo markii la joogay banaankii wax ku gadaan hooyada way istaragalaysaa way cararaysaa banaankii wax ku gadaysaa maanta oo dhan ay sii socotaa maanta dhan ay soo socotaa maxaa la dhahaa dabkii gelaysaa kulaylkaas burjika wax lagu karsanayaa waxaas dhan oo kugu dhacayo waxa u baahan tahay inaad maxaa la dhahaa skinkaaga oo repair helo repair ama MOT anaga Europe dadka Europe joogan la hadlaaya raali ah dadka Afrika daada fahmi karin MOT waxa la dhahaa baabuurta waxa la saaraa sanadkii markay joogan sanad kasto waxay soo maraan check up meel dawladda leedahay oo gaarigaas asaga dhan la wada marsiinayo walaa lugtiisa walaa madaxiisa walaa meel kasto MOT gaas dawladdu ka socdaa ma aha meel garaash adiga aad tagto samaysanaysid ma aha dadka garanayo dadkan garanayna u sheegaya iska raali ahaadaya waxa loogu talagalay MOT gaas la saaraya waxa ku soo baxayo certificate ama warqad cadeynayso gaarigaas sanad kadib hal sano dhan inuu hadana ilaa sanadkiisa kale inuu socon karo oo wadada mari karo oo safe yahay ayaa uu waxayna hadaa ku dhacdana that means meel uu ka ciladaysan yahay garaash gay meeshas uu ka ciladaysan yahay soo sameey anaga marka saas tusaalahan waxa ugu soo qaatay iga raali ahaada hadaan hadalka idinku badiyay oo aan agenda kala galgalay ujeedadayna waxay tahay inaan maxaa la dhahaa aan waa mahadsantihiin ma sha Allah waa idin wada salaamay gabdhaha walaalahay wiilasha dhammaan dadka barnaamijka live hadda soo galay gadaal ka soo galay waa idin wada salaamaya dhammaantiin dadkii hore salaantoodii waa qaateen adinka maybe laga yaabaa inay gadaal ka soo gasheen waxaan ka wadaa MOT gaas wuxuu ku suurtagelinayaa mar kale ina hal sano kale aad socon kartid marka waxaan ka wadaa annaga haween hadaan nahay MOT u baahan nahay ma aha hal sano annaga meel ma gelayno warshadna lama gelinaye waxaan ka wadnaa maadaama aan hooyooyin nahay maadaama aan gabdho nahay iskuul tagayno jaamacad tagayno shaqo tagayno hooyo tahay caruur iskuul leedahay iskuul geynaysa inta geynaysa MOT geena simply hatta face wash waxa u soo yareeyay oo 3 in 1 oga dhigay waxay tahay in shaqada la soo fududeeyo shaqada hawsha la soo fududeeyo aniga kula hadlaayo waa caajisaya kan ku dhaq kan kala soo qaba kan laakiin hadda face wash ka qaato hal mar ku dhaqo oo wajigiisa isu fiiriyo ma sha Allah nadiif uu ila noqdo shine ila noqdo kadibna aan iska dhigo hadana face maxal dhaha serum ku soo qaato aniga inta ku muxuu ahaa ku dhiijisto halkaas dhiiqo kale serum ku anfacaya dhaladaas yarta ah halkaas hadaa ku dhiijiso intaas yarta ah haday arkaysaan serumka dadka isticmaalaha iska badinina macna badan ma sameeynayo hadaa dhalada dhan inta ku shubtid iyo hadaa halkaas dhiiq isticmaashid wax difference ah badan ma ku sameeynayo so halahaas soo qaadanaysa wajiga inta saaraysa ka bacdi labadaada farooda saas ugu masaajeynaysa li'annahu halaha yarka ah ma arkaysa hadaa gacanti dhan asaas ku dhaho tusaal ahaan maxaa marinaya maxaa iga soo harayba maxaa wajigiiba gacantii la tagtay marka saas ma loo marsado walaa kareem walaa serum walaa wax kasto
annaga saas ma loo marsado because gacmihii ayaa kareemkii la tagaayo wejigii wax gaaraya ma leh haddaan saas dhaha haddana wax wejiga gaaraya ma laha so saas darteed hadda serumkii yara intaan iska marsanayaa ma rabo inuu iga khasaaro gacmahayga laftigayga markaa jikada gashid oo jikada kasoo baxdid oo alaabo dhaqdid xoogaa gacmaha dhan waxay ku noqonayaan ririf camal ay ku noqonayaan meeshaan dhexdida kaasoo baxaayo jactad camal ay ku noqonayaan marka waa u baahan tahay sometimes iyada laftigeeda inaa dhaqdid oo wax iska marsatid marka serumka intaa ku dhijinaysaa saas u qaadanaysaa labadaada farooda saas ugu masaajeynaysaa dhinaca kale haddana saas ugu masaajeynaysaa haddana kor saas ugu masaajeynay labadaas farood ma ka badinaysid wejigaa saas loo rugaayo xitaa ma fiicno wejiga saan aa dhehaysid kareemka markaa marsanaysid ama wax aa marsanaysid saas aa u masaajeynaysid ma fiicno sababta maxay tahay laastiig waayo wuu kaa dabcayaa wejiga gacantaadan way adag tahay wejigaagana waa jilicsan yahay haddaa saas u rugto intaa kaa jabaayo haweenka u sheegaya ragga ma ahayaa iska raalli ahaada ragga waxaan u sheegayaa haweenka wejigaaga gacanta aad ha ugu adkayn markaa wax marsanaysid haddaa kareem marsanaysaan u mari fiiri saas macnaha dhinacan saas saan haddaad tiraahdid inta ma arkaysaa ilaa halahaasaa kaasoo jabaayo aniga wejigayga intii hadda aan soo caqliyaystay oo aan soo maxaystay maxaa la dhahaa halahaana saana u dhaqaa gadaal u dhaqaa dhinacaana gadaashaasaan u dhaqaa markaan qalajinayana mara yaran saas u saarsaaraa kuma rug no wejiga laastiig waaye wuu kaa jilcayaa marka waxaan idinkula talinayaa barnaamijka I think xoogaa waa ka faa'iidaysanay waa kala qaybsanayna insha allah wiigii waxaan isku dayi doonaa maalmaha afraaqada ahay inaan soo galo insha allahu tacaala reer London waxaa idinkugu bishaareyn doonaa meel weyn oo xarun ah inaan idin furi doono hadda hawsheeda gabagaba tahay oo ah laakiin training center oo training ah oo haweenka lagu tababarayo maxaa la barayaa anaa idin soo sheegi doono waxaan samayn doonaa surprise ayada laftigeeda insha allahu tacaala face washka ku dhaqanaysaa serumka marsanaysaa haddaa rabto ku seexanaysaa haddaa rabtana marka aad soo jeedaa marsanaysaa dadka kiimikada isticmaalay serumka wuu dhibaa fakta ugu horeyso ama marka ugu horeyso sababta maxay tahay wejigoodii aa jilcay waxba ma aqbali karo waxba ma qaadi karo wuu xanaaqsan yahay soo cirkaasuu gelaya marka saas darteed waxaa jiro hab loola dhaqmo gabdhaha kiimikada isticmaalo boqolkiiba intaa rabtiin iska ahaada waxaa idinkula talinayaa ina horta aad kiimikada iska dhaaftaan haddii kale cimrigaaga lacagtaadoo milyanis ah dhow haddaa hesho wejigaagii ma kuu soo noqonayo xaqiiqdan kuu sheegaa waa imaa operation aad waa imaa yurub tag waa imaa america tag waa imaa jarmalka tag meeshaa rabtid adduunka tag lacag intaad doontid wado ma helaysid wejigaagii originaalka ahaa waxaan kuu sheegayaa gabdhaha kula talinayaa kiimikada facebookyada iyo websiteyada iyo meelaha waxaa la soo geliyaa dumar maasha allah ilaahay waxaan ka baryayaa inuu soo hadeeyo sababtoo ah markii hore Soomaali ma moodeyne markii dambe Soomaali inay yihiin aan arkay wallahi I feel shocked aad uga naxay because gabadhaas waxaan u naxay future-keeda waxaan u naxay waxa guursan doona caruurta ay dhali doonto meesha ay ku nooshahay iyo sida ay subxaanallah waxyaalahaas oo kale ma raba inaan use gareeyo inaan isticmaalo kiimikada inay sun tahay bini aadamka dhanaa wada og adiga marsanaya og gabadha kale oo marsanaysaa og laakiin hadhow shalayga marka anaga waa idinkula talinaya waa idin sheegaya haddaa ka tegi karto maxaa la dhahaa waan idin waa idin mahad celinaya dadka gadaalka soo galay xasan waa idin mahad ifraax sister ifraax maasha allah sister waa ku salaamay dhammaantiin aad iyo aad idin wada salaamaya barnaamijka wuu noo socon doonaa insha allah maalmo qaar khaas ah wiigii 2 ilaa 3 goor aan soo gali doonaa waa ka faa'iideysan doonaa facebookyada maxaa la dhahaa
مسجدينا وأركي دونا شيركينا وأركي دونا سيدا interest ugu tihiin hadday tustaan markaas waxay igelinaysaa encouragement waxaa la dhahaa dhiirigelin maxaa la dhahaa inaan ku dhiirado inaan marka dambayso inaan waxyaalo fiican ama waxyaalo muhiim oo kale aan wadaagi karno aan soo galno marka haddana waqti dambe idin tahay saan filaayo waxaan idin leeyahay idinkama tegin anigoo idin jecel idinkoo i jecel والله معنا ومعكم إله سبحانه وتعالى وحنك بريايا دنبيجينا دنبي والدكين بإنه ضافه ودنبابنا دنبيجا أنقلنا إله سبحانه وتعالى دنبيجينا دنبي والدكين بالله ضافه قاتم هذا الله نوصميه إله عرديس إله نومرده ماشان جوجنا بالله نأمان سدو توفيق ذا الله نوافجيه والله معنا ومعكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذا جعلها دمانتين mid iyo laba iyo saddex idan ma dhihi karo aad iyo aad ma sha Allah. Assalaamu calaykum.